bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. waa Arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay 16 bisha 9 ee September sanadka 2020. qodobada wararka maanta idiin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah beesha caalamka oo si toos ah u soo fargelisay shirka Muqdisho ka soconaya kadib markii ay bilowday inay u yeerto qaar kamida madaxda shirkan ka qayb galaysa. Mareykanka oo kulan xasaasi ah la qaatay maamulada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa looga hadlay kulankaas ayaan eegi doonaa. beesha caalamka oo si kulul u canaanatay Axmed Madoobe kadib markii uu go'aano adag hor dhigay madaxweyne Farmaajo. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre oo bilaabay olole ka dhanaa madaxweyne Farmaajo kadib markii uu kulan qarsoodi ah Muqdisho kula qaatay gudoomiyihii hore golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Farmaajo sheegayna in Farmaajo uu baalmaray dastuurka dalka u yaala. madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan oo sheegay arrin aysan Soomaalida iyo beesha caalamka aqbali karin, iyo xildhibaan cusub leh oo si la yaab leh u sheegay inuu bilaabi doono nidaam uu Soomaaliya dawlad cusub ugu soo dhisayo. waa hagaag daawadayaal intaas daawateen waxay hayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn. iminkan ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay channelkeena YouTube-ka xulashada wararka. subscribe inoo saaro gambaleelka faro si aad u hesho xogaha iyo wararkan halkan ku baahino. idinkuna aad mahadsantiin soo dhawaada markale saaxiibayaal. waxaan ku bilaabayaa maanta wararkeena wararkii ugu dambeeyay beesha caalamka ayaa la soo warinayaa inay si toos ah u faragelisay shirka Muqdisho ka soconaya kadib markii ay bilowday inay u yeerto qaar kamid ah madaxda shirkan ka qayb galaysa. waxa maalintii afraad galay ee shirka Muqdisho ay ku leeyihiin madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir, iyadoo wali shirkaasi aysan natiijo ka soo bixin oo qodobada qaar la isku khilaafsan yahay. haddaba beesha caalamka ayaan eegi doonaa sida ay shirkaas u soo faragelisay. wakiilada beesha caalamka ee magaalada Muqdisho ayaa bilaabay inay kulamo markaasi kala gaargaar ah ugu yeeraan madaxda dawladda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha ee maamul goboleedyada iyagu markaasi shirkan magaalada Muqdisho uga soconayo kadib markii shirka Muqdisho ay soo food saareen culeysyo la xiriira arrimaha doorashooyinka oo ah kuwa laga doodayo. shirka oo la filayay inuu galo maalintiisii afraad ayaa la soo warinayaa in hakad markaasi uu soo kala galay, iyadoo hakadkaasi lagu saleynayo inuu yahay mid la xiriira wada tashiyo ay dhinacyada la yeelanayaan maamulada ay hogaaminayaan kadib markii shirar saacado badan oo si weyn looga dooday heshiiska doorashada la isku mari waayay in la isku dhaweeyo federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda dhexe. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa saacadihii la soo dhaafay tagay garoonka Muqdisho si uu ula kulmo wakiilada beesha caalamka oo hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswon iyo xubno uu ka mid yahay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya ee Ben Fender, wakiilo Mareykan ah iyo waliba sidoo kale xubno ka socday midowga Afrika. xafiiska Axmed Madoobe ayaa sheegay in kulanka looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka, iyadoo si qoto dheer loo falanqeeyay xaaladda kala guurka ah iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho la wada ogol yahay. shirka madaxda Soomaalida ee hakadka ku jira ayaa la sheegay inay ku soo korortay arrin ku saabsan maamulka doorashada oo madaxdii shirkii Dhuusamareeb 3 heshiis ay ku saxiixdeen oo markaasi sheegayay in ay doorashada maamulayso Xaliimo Yari oo ah guddiga madaxa bannaan ee gudoomiyahooda. dhinaca kale madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ayaa shirar kala gaargaar ah iyo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Muqdisho, iyadoo saacadii la soo dhaafay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu gaaray xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho. Mareykankana waxa uu kulan xasaasi ah la qaatay maamulada Puntland, Jubbaland iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in safiirka Mareykanka uu martigeliyay kulan looga hadlayay arrimaha amniga iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo dhex marayay saraakiisha Africom iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga amniga iyo midka ka dhaxeeya taliska ciidamada Mareykanka iyo saddexda maamul goboleed iyo dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, waxaana Africom markaas uga qayb galay taliye ku-xigeenka ciidamada Mareykanka ee Afrika iyo waliba sidoo kale saraakiil kale, waxaana shir gudoominayay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, Jubbaland Axmed Madoobe iyo Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka soo muuqday sawirro ay baahisay safaaradda Mareykanka
oo kulankani iyadu markaasi martigelisay. dhinaca kalena ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre ayaa bilaabay olole ka dhan ah madaxweyne Farmaajo kadib markii uu kulan qarsoodi ah Muqdisho kula yeeshay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo hadda ah murashax u taagan xilka madaxweynaha ayaa hoygiisa qada sharaf waxa uu sameeyay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. sidaan ogaanay kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka, marxaladda kala guurka iyo mustaqbalka dalka xilli weli heshiis rasmi ah aysan saamilayda siyaasaddu ka gaarin nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa 2020-2021. Xasan Cali Kheyre ayaa intii uu kulanka socday waxa uu ku celceliyay muhiimadda ay ummadda Soomaaliyeed u leedahay doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda si looga baaqsado khalkhal ee dhinacyo badan oo dalka ku yimaada. Mr. Kheyre oo xafiiska ra'iisul wasaaraha baneeyay ee July 25-keedii ayaa dhowaan shaaciyay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha dalka. kulankan ayaa ku soo aadaya xilli uu dhowaan Kheyre ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan jagada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado inay bilowga sanadkan soo socda ee ka qabsoomta dalka, inkasta oo markaasi ay weli ku gadaaman yihiin madmadow ku aadan doorashooyinka dalka. ra'iisul wasaare Kheyre iyo gudoomiye Jawaari ayaa la rumaysan yahay inuu xiriirkooda xumaa muddooyinkii dambe xilli lagu tiriyo in xukuumaddii uu hogaaminayay Kheyre ay kaalin ku lahayd in xilka laga xayuubiyo Jawaari. waxaana kulankani noqonayaa midkii u horeeyay ee dhexmara Kheyre iyo Jawaari tan iyo markii uu khilaafka siyaasiga ah soo kala dhexgalay labadaasi dhinac, wuxuuna qayb ka noqonayaa ololaha xoogan ee markaasi haatan uu bilaabayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo doonaya inuu dalka ka noqdo madaxweynihii hore ee dalkana waxa uu weerar afka ku qaaday madaxweyne Farmaajo isaga oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu baal maray dastuurka dalka u yaala. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu eedeyn culus u jeediyay madaxweyne Farmaajo isagoo ku eedeeyay in Farmaajo uu ku xadgudbay dastuurka dalka u yaala. shir jaraa'id oo uu ku qabtay Muqdisho ayuu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka isaga oo si gaar ah isu dul istaagay qaladaadka ee dhinaca sharciga ah ee dhacay muddooyinkii la soo dhaafay isla markaana ka dhacay filla Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan ka mid ah hoggaanka ugu miisaanka culus ee madasha xisbiyada qaran ee dalka waxa uu si cad u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu isku soo koobay dhammaan howlihii ee dalka ka socday. sida ay howlaha haatan u socdaan ayuu ku sifeeyay inay la mid tahay kala talisnimo isagoo tusaale u soo qaatay ra'iisul wasaare la'aanta dalka ka jirta muddo 53 maalin ah iyadoo aan xitaa muuqan ififaalo muujinaysa inay socoto in ra'iisul wasaaraha markaasi uu soo magacaabo Farmaajo. ugu dambeyn Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay dalka badbaadiyaan oo aysan ku sii fiirsan xaaladan halista badan ee uu haatan ku sugan yahay dalka, maadaama madaxweyne Farmaajo uu indhaha ka fiirsanayo xukuumad sharci darro ah oo dalka ka jirta sida uu hadalka u dhigay Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan ayaa sheegay arrin aysan Soomaalida iyo beesha caalamka toona aqbali karin. madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo eedeemo badan u jeediyay hoggaanka dawladda federaalka. Shariif Xasan ayaa sheegay in weligeed aysan dhicin intaan oo kale in dalka uu ra'iisul wasaare la'aan ahaado. kaaga darane waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in baarlamaanku uu maalin kasta ka doodayo sharciyo ay u soo gudbisay xukuumaddii ay rideen iyaga naftirkooda. waxa uu sheegay in sharci darro ay u arkaan wax kasta oo ka soo gudbay golaha xukuumadda wixii ka dambeeyay 25 July markaas oo baarlamaanka Soomaaliya uu codka kalsoonida kala noqday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Kheyre. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay inay ku talinayaan in dalka loo magacaabo xukuumad markaasi hogaamisa xataa haddii waqtigii doorashada ay maalin kaliya ka dhiman tahay aan laga maarmaynin xukuumad sharci ah oo shaqaysa. ugu dambeyntiina xildhibaan Cusuble ayaa sheegay inuu bilaabi doono nidaam cusub oo uu markaasi Soomaaliya ugu soo dhisayo dawlad cusub. xildhibaan Cabduqaadir Cusuble Cali oo ah hogaamiyaha xisbiga Ilays ayaa sheegay inaan dalka lagu sii fiirsan doonin burburka ay dawladnimada waddanka ku wadaan madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisa sida uu hadalka u dhigay. Mr. Cusuble waxa uu si cad u sheegay in markaasi la bilaabi doono nidaam dalka lagu soo dhisayo dawlad dastuurka ilaalisa iyadoo wixii haatan ka dambeeyay aan lagu sii eegan doonin ku tagrifalka awoodeed iyo sharci ku timashada dalka ka soconaya.
cabdiqaadir cosoble ayaa markaasi ka hadlay kulan madasha xisbiyada qaran ay soo abaabushay waxa uuna dhinaca kala shaaciyay in madaxweyne farmaajo uu mas'uuliyadeeda dusha u ridanayo burbur kasta oo yimaada maadaama uu isagu meel iska dhigay sharciga dalka u yeelay lagu dhaqayay. si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu dhaliil kulul iyo eedeymo kala kulmayay hogaamiyaasha mucaaradka ah ee dalka ka jira. guud ahaan daawadayaal wararkii oo maanta aad kala socoteen channelka xulashada wararka intaas ay ku dhayihiin wararkan warar la mid ah intaan mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.